بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإدنا آذن وإذن كلا هدليسة هرقيسة عاصمة سوماليلاند. ساكا وحن دوني إن إذن كلا هدلو وحا بلاب ميا سنة دوكسيات كي عصباء لما كوني سدحي لباتن لما كوني أفري لباتن وحا إيمانيا أو إسقوريا إسديوان قلينيا أردي فربضان الحمد لله وان ku faraxsanahay sida caruurteenu ubadkeenu umadeenu ay xoog u saarayso aqoonta iyo waxbarashada waa halka aynu ku gaari karno horumar ku gaari karno cilmi iyo farsamo iyo xoogsi iyo dhaqaale iyo wax walba aynu ku heli karno hadii aynu farsamada iyo aqoonta iyo cilmiga aynu sii badino waxaan waliba sanadkan aad ugu faraxsanahay inaan idin la qaybsado bishaarada ah waxaanu bilaabaynaa master degree-ga masterka ah ee aanu ku bixinayno kalkaaliye iyo umuliso waad la socotaan waxaanu bixin jirnay master kale oo haday noqoto caafimaadka guud haday noqoto shaybaadh marka doorkan waxa soo kordhay oo aanu wada qabanaynaa si wada jir aanu u wada qabanaynaa jaamacadda Haramayo iyo Edna Adan University Master of Nursing Master of Midwifery ummadda reer Soomaaliland waxaan ugu yeeraynaa jaamacadda Adna hadda ay idin bilaabayso heerka labaad ee waxbarashada ama masterska gaar ahaan kulliyadaha umulisooyinka iyo kalkaalisooyinka nursing and midwifery nursing and midwifery si loo helo jaamacadda Adna Adan waxay heshiis la gashay jaamacadda Haramayo sababtana Haramayo heshiis kula galay waxa weeyaan laababkii iyo qalabkii iyo macallimiintii khibradda lahaa ayaa halka jooga marka master la sameeyo waxa loo baahan doonaa community outreach waxa loo baahan doonaa labs waaweyn practical lagu sameeyo iyo waxa loo baahanayaa research la sameeyo si ay taasi u dhacdo jaamacaddu kharash badan baa taa ku baxdaa taasi loo gaaro jaamacaddu marka waxay la heshiisay jaamacadda Haramayo isla markaana jaamacaddu waxay diyaar u tahay inay kabto kharashaadka ku bixi doona safarrada loogu bixi doona heer ama guud ahaan Soomaaliland marka ardayda waxaan ugu yeeraynaa waxbarasho tayo leh oo waddanka Soomaaliland gudihiisa lagu dhiganayo oo qiimaha ugu badan ee ugu jaban ee master lagu qaato ku bixi doonta waxaan ugu yeerayaa waxbarashada jaamacadda looga baratay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan ummadda reer Soomaaliland ugu bayaaminaya ama ugu cadeynaya in jaamacadda Adna Adan ay laba qaybood ama laba faculty oo ah nursingka iyo midwiferyga ama umulisooyinka ay ku bixin doonto waxbarasho sare oo master's degree ah sida daraadeed jaamacaddu waxay diyaar u tahay cid kasta oo reer Soomaaliland ah oo diyaar u ah in waxbarashada sare uu ka qayb qaato oo galo halka kana arkaysaan jaamacadda Adna Adan waxaanu ku haynaa tayo waxbarasho tayo leh labada faculty-na nursing iyo midwifery-guna waxay dalkeena u yihiin muhiim dhalaankeena hooyooyinkeen iyo dhammaan rag iyo dumarba waa u muhiim. All right, assalamu alaikum. My name is Alamayo Bayrai. I'm a professor of public health and I've been here in Somaliland for the last 3 years working as a Dean of Public Health and Director for Postgraduate Programs and also Coordinator of Research. So as you know, as you are aware, Edna Adan University had been training undergraduate and postgraduate programs. And we have the first batch in master's degree in public health 2 weeks ago. And I'm here now to tell you that we are planning to start a new master's programs. So we have 2 master's programs that are Master of Science degree in midwifery and Masters of Science degree in nursing. So these 2 programs will be handled by 2 universities, Edna Adan University and Haramayo University from Ethiopia. Now we have already finalized the joint curriculum, which is going to take 2 years, and the first year course
work will be done, and in fact, side by side, the students will be exposed to some practicum and field practices. But in the second year, they will be completely engaged in conducting their research. So Edna Adan University has currently started registration. So I invite you to apply either in person or online, and then be the first master's holder in midwifery and in nursing. I thank you very much. fariinteena waxaan ku khatimayaa inaan idinku bushaareeyo waxbarashadii tayada lahayd ee looga bartay jaamacadda Edna Adan iyo cisbitaalka Edna Adan inaan halkii ka sii wadno. bushaarada ugu weyn waxa weeyaan inaan masterkii nursing iyo midwiferyga si ay shaqooyin uga helaan adduunka iyo Somaliland ba shaqo madaxnimo si aad u ogtihiin ardayda ka baxday jaamacadeenu inay maanta shaqooyin waaweyn ka hayaan adduunka dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. jaamacada waaweyn adduunka ayaan ku tagnaa ku soo aragnaa Europe, Mareykan, dalalka Carbeed baan ku soo aragnaa. waa tayadii nooga bartay. tayadaasuna waa ta aanu cisbitaalka iyo jaamacaddanba loo dhisay. waxa bushaarada ugu weyn waxa weeyaan masterradii way socdaan. waxaan tiigsanaynaa waa PhD. waxaa soo dhammaan waxa weeyaan waa higsigayaga iyo himiladayada ah in mar walbaba tacliin heer sare ah oo tayo leh ardayda Somaliland ay ka hesho jaamacadda Edna Adan Ismaaciil. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.